Riyo qofka ku riyooda xishood dareema in badan dad lama wadaagaan riyooyinka noocan oo kale dadka ku riyooda khaasatan dumarka waa dhowr mawduuc waana su-aalihii jawaabo mawduucyo balbalaaran ayaan ka sameynayaa si qof walbo riyooyinka noocan oo kale u arka fasirka riyadiisa jawaabteeda u helo waana dhowr su-aalood jawaabahooda nala socdo walaalayaal. Gabadha waxay ku riyootay walaalkeed. Gabadha waa garoob waxay ku riyootay iyadoo walaalkeeda isguursadeen iyadoo walaalkeeda aroosayo guurka maxaarimka waxay tilmaamaysaa baarinimo isfahan isjeceyl inaad dadka iskaga dhowdihiin sidoo kale haddaad ku riyootid aabbaha oo ku guursanayo taan waxay tilmaamaysaa ficlan baarinimo inaad baari u tahay mise aad labadiinaba isku dhowdihiin dad iskugu dhowdihiin aad isfahansantihiin gabadhi aabeed oo saaxiibo ma arkino oo isjecelo aad isku fahansan sidoo kale wiilkaad dhashay hadduu yahay wiilaad dhashay adoo guursanayo awoowagaagoo kale ay qof oo maxaarimka way badiyin maxaarimka ilmaha dhashay noqonaya ilmaha walaashaa dhashay kuwa walaalkaa dhalay oo kale qofkan weyse kaa jibininba guurkiisa ma xumo in badan waa kasoo hadlay janankii hore waxay tilmaamaysaa isfahan iyo baarinimo isku soo dhawaasho culimo qaar waxay leeyihiin guurka maxaarimka wuxuu tilmaamaa inaad isku dhowdihiin mise aad kala fogtihiin wax soo saddexeeya ma lahanay leeyihiin laakiin inta badan mufasiriinta riyooyinka waxay yidhaahdaan guurka maxaarimka waa baarinimo is-adeecid ismaqlid iyo isjeceyl iyada waxay soo raacisay hadee riyadaa xuntaa haba iisoo fasirin bilcakis riyada aaday u fiican tahay aad waxaa macquula inuu walaalka aad isku jeceshiin mise aad dadka iskugu dhowdihiin isfahansantihiin mawduuca xiga waana su-aal mawduuc dhameystiran waan ka dhigi doonaa insha allah gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday qof aniga aqaano oo isoo fiirinayo kabacdi waxay tiri lug ayaan naafo ka noqday kabacdina waxay tiri xawqaladan akhriyey kabacdina waa fiicnaaday riyadaniti waa dhowr nooc ay kala qaadmaysaa horta riyooyinka noocan oo kale inta badan mina shayaadiin ay ka noqonaysaa li'aanuu qofka aad taqaanid oo kusoo fiirinayo wuxuu kaa tusaya sawir xun li'aanuu wuxuu rabaa inuu qofkaa kuugu diro matala hataa inaad aamintid qofkaanaa ku cayuumi waad xanuunsan tahay qofkaasaa ku cayuumi oo kale inuu ku leeyahy marka fiirmadaa kale fiirmada ay ku fiirinaysa hadday ahayd fiirmo xasad iyo xumaan iyo xiqdi ku jira hadday ahayd riyada dhexdeeda rubama adiga gabadhaanba shaqo ku lehenoo mashaakilo kale adiga nafsadaada la daras tahay ay jirtaa laana waxay ka turjumaysaa inay aramo mashaakilay dhibaatooyin adiga kuga hareereysan way ka turjumaysaa waxay kaloo ka turjumaysaa dhib hadduu xataa qofka xaggiisa kaaga yimaan doono mise kaaga yimaadiba hadday ahayd fiirmo xuno nacayb iyo kiraahiye ku jirto hadday ahayd mid saddexaad ay noqon kartaayo haddaa adiga caadi ahaan aad ahayd qof xasad la kulmay il bini aadan iyada leemaha qof kale hataa dad kale hataa inay dhibaatooyin il bini aadan meelkaas soo saamaysay isha xasadka ee meelkaas saamaysay haddii adigaa tahay caadi ahaan qof xasadkaa saameeyey oo riyadan kaloo aragtayna midaan way ka turjumaysaa mar walba walaaleel waxaa dhahaa qofkii xaaladiisa waa muhiim riyadan oo kale hadda dhowr qofood hadday ku riyoodaan micnooyin kala duwan ayay u tilmaamaysaa sidaa darteed ayaan intaasoo khiyaaraada aan usoo qaadanayaa si qofka maaragtaa riyadiisa iyo qaabka riyada u dhacday iyo xaaladiisa waxa ku sugan ay isu waafaqaan marka haddii matalan saddexda arrimood mid ka mid ay noqonaysaa midda afaraad oo ugu muhiimsan oo noqonaysan waxay ka mid tahay shaydaan inta badan wuxuu jecel yahay colaada iyo dagaalka iyo inta dadka muslimiinta uqdad caloosha iskugu qaadaan li'aanuu wuxuu ogyahay qofka labada qofood oo walaalaha haddii 3 maalmood dagaalkooda dhaafa inaan cibaado laga aqbalaynin oo arrinta ay aad u xun tahay sidaa darteed inta badan riyooyinka noocan oo kale mina shayaadiin ay ka ahaataa wallahu yaclam
aan u soo noqdo xawqalada dhib walba ku haystay farajay tilmaamaysaa. Haddii ficlan qofkaanayti dhibaato kuu geystay gabadhaa ku soo fiirinaysa ka guulaysay tilmaamaysaa nasri in adiga aa helaysid. Haddii adiga caadi ahaan xasad aad la ildaran tahay caafimaad ay tilmaamaysaa. haddii adiga dhibaatooyin mashaakil kale aad ka sheeganaysina guul iyo ka gudbid ay tilmaamaysaa. yacni riyadaad waa riyo fiican. wallahu yaclam. gabar kale qoraalkeeda ma fahmin. waxay tiri wiilaa xiriir lahayn eedadiisa oo damcaysa asiga may ka wadaa ma aqaano. qoraalka in badan ma fahmoy. marka sidaa darteeda riyada ma fasiri karno li'aano qoraalka in la fahmo waa muhiim. haddee iyada ay ka wado wiilka ay eedada ku riyootay wiilka eedada u tahay iyadoo damcaysa waa mawduuci haddaan kasoo hadalnoo kale. kii ugu horeeyaan kasoo hadalnay yacni guurka maxaarimka oo kale mise hataa adoo damcayo qof maxaarimkaaga ah waa bir iyo yacni baarinimo. bir waa af carabi yacni baarinimo iyo isfahan labada qofood dhexdooda taala. intaan bay tilmaamaysaa. wax weyn ma tilmaamaysa. muuqaalkii hore walaalayaal waxaan idiin soo sheegay inay ku jirto kelmad sir. kelmadda sirtan waxay ahayd su-aal ayay ahayd. su-aasha jawaabteeda hadday haa tahay waxaan idinka codsaday inaad soo qortaan. hal qof ayaa soo qora oo yidhi noo soo qora. qofkii muuqaalkii hore daawaday wuu fahmi karaa waxaa ka hadlaya. qofkaan daawanina qaybta komitiga soo dhigi doona. komitiga ugu horeeyay soo daawo muuqaalkii hore kan hadda waxaan ka hadlaya si aad u fahantid. su-aashii muuqaalka hore oo kelmadda sirta ahayd jawaabteeda halkaa idinka siinaa. jawaabtu waa suuratalbaqara. intaa idiin soo sheegay dhibaatooyin noocyadaasoo kale haddaad ka cabanaysaan xalkeedu waa suuratalbaqara. akiid waa ogaa suuratalbaqara way dheer tahay. qofku waynu ku adag tahay inuu akhristo. kama hadlaa inaa guriga aad ku shidid inaa akhriisatid maalin walba hal mar mise 2 mar intaa akhrin kartid. muddo ka bacdi isbedel weyn ayaad ka arkaysaa. waana la tijaabiyey dad badan isbedel ay ka arkeen. mawduuceena ugu dambeeyo gabadhaa weli la guursanin hadday ku riyooto cibaayad iyo kabo iyo shandada garabka. saddexdaa hadday riyo ku aragto guur ayay tilmaamaysaa. cibaayad waa inay quruxsanaataa cuseebna ahaataa. sidoo kale shandada garabka. sidoo kale kabaha waa inay la ekaadaan. kaba quruxsan ay ahaadaan. waana kaba ay qaadanayso yacni isla xaalada markay riyadu ku aragto way xiranaysaa. laakiin haddaa kabaha iska celisid rubama guur wanaagsanaa aad ka noqonaysaa aad ogolaanaynin. laakiin haddii kabahaas aad xiratay kula ekaadeen oon quruxsanaayeen waxay tilmaamaysaa guur wanaagsan. wallahu yaclam. laag noo saar walaalayaal noona sheergareeya. wassalaamu calaykum.